intiida aan gado lacagna aan ka abuuro jirkaaga xubin ka mid ah gado lacag aad u fara badan ayaad ku helaysaa 100,000 way gaaraysaa sida la sheegay jirkaaga xubin ka mid ah inaan gado duruuf awgeed jirkaada xubin ka mid ah inaan gado masalano laakiin mar walba dee dhibaato xun ay jirto xubnaha jirka ka mid ah malena qof la geedoon inay jiro marka gabadhan ayaa hadeer si live u tiri ana waxaa rabaa xubnahayga qaybo kamid inaan gado waxaa rabaa kala cagayso waxaana igasay duruuf dad qaar hadda waxay u fahmayaan in ay tahay inay ka sinaysanayso xubinteeda taranka oo lacagna ay ka abuurayso haddii dhinac kale loo dhigana waxaa loo fasiri karaa inay tahay keliyada ayaa garanaya sidaa duruuf ugu baxo ilaa $100,000 keliyada way gaartaa marmar qaarkood marka aad sii dhegeysanay gabadhan warka yaa laga hordhicin inaan magaaladaas aado duruuf awgeed ay u kaliftay inaan Zambia aado sida ogtahaybo Soomaaliya dadka faqiirinta ayaa aad ugu batay wallahi waxaan sheegay ma aqaan horta duruufaha waxyaalo badan arkaysa dad qofka bilaadan ku kalifayo ana duruufteeda waxay u kaliftay horaa loo yiri dantaada maqaar ayaa loogu saxtaa duruufteeda waxay u kaliftay heer jirkeyga xubin ka mid ah inaan gado oo hadda isku targaleynaa isla birtool inaan baxo waana magaalada Zambia hadda xubin jirkeyga ka mid ah suulka ama farta oo mid ka mid ah aan gado inaan lacag aad u badan faa'iidayo oo Soomaali aan ka taajirayo safarka Zambia ku aadaysa gorma qorsheed inaad baxid wallahi isla birtool waa qorsheey Zambia waxaan ka doonayaa Zambia qof baan ka bartay oo asxaab aan ka dhigtay waxaan u sheegay duruufeyga iyo macnaa lahay duruufta ay haysto nolosha wax ay haysto dhan aan u sheegay soo marka wuxuu idhahay waxa sameeysaa like jirkaaga xubin ka mid ah suuq ama farta ina mid ka mid ah gado Soomaali ayaa wuxuu ku mamaadaa qofna warsi u dhah sina u fasiray marka gabadhan hadda faanay wadan kamid Afrika ayaa laga gataa suulka lugaha oo lacag badan la siisanayo sheegay sanadka dhaciisa keliyada waa laga tagay xubnaha jirka ugu yar oo faraha iyo suulka ayaa markaa la iibsadaa marka waa wadanka Zambia sida ku dhageysa ani muuqaal hore marka gabadhan Zambia ayaa socota sida sheegay xubnaheeda ayaa jirka qayb ka mid soo geli doontaa oo suulka ka yahay ayadoo uu bixi doonto faqrinimada hadlaysa qof duruufaysan oo duruuf ka hadlaysa marka anaga sida u fasirnay ma ahayn muuqaalka committee badan aqri waa arko muuqaal dad ma wax u fasirtay in maarta jirkeeda kala cadad ay tahay qof maarta jirkeeda inay ka ganacsato oo sida qaab sharmuuta aan u shaqaysanaysa laakiin ma aha gabadhan waa si wax u shaqaysanaysa caadi oo ximee ay garanaysa waliba baasaboorka ay gacanta ku daa muuqaalka la sheergalay asxaabta muuqaalka